بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسابي وإذن سلامي ورعدا Soomaalida horta waxaan nahay dad aad iyo aad u xadaarad badan ayaan nahay. Waxaan rabaa inaan ka hadlo dhowr kelib ama dhowr qoraal oo aan arkay oo mid walba waa iga yaabiyey. Facebook, Instagram, yacni maxay ahayd all entire social media YouTuber leeyahaba ugu darnaadaane meel walba waxaan arkayaa maxay ahayd Mo Farah oo la hadlay yacni newsyada ama around the world adduunka dhan laga fiirsaday ka sheekeeyey qiso kana sheekeeyey magaciisa inuusan Maxamed Faarax ahayn ee uu magac kale leeyahay, sababtii uu ku soo galay dalka Ingiriiska, reerkii keenay, sidii loola dhaqmay, aabihii in la dilay, maxaan ku idhaahdaaye isagu inuu kor isku soo qaaday, macalimadiisii tababaraha u aheeday maxay xagga isboortiga inay caawiday. Intaa ayuu sheegay. Waxaa laga iyo inta kaleetaba intaasaan kasoo qaatay hadda. Marka waxaa laga yaabaa barnaamijyo badan inay dhiman yihiin. Soomaaliya waxaa idin weydiinaa horta Mo Farah wiilkan orodyahanka caanka ah ee Soomaaliyeed ma adinkaa qaabilay oo sharciga siiyey? Ma adinkaa dowladda Britain ah? Maxaa horta waxaan oo dhibaato ah oo qofba qofka kaleeto into xitaa qaar baan fahmin waxa uu sheegaya iyo waxa uu ka sheekeynayo. Waxay maqleen Soomaalidii warka turjubaantay, kii turjubaanay sidii saxda ahayd uma turjubaanin. Hadduu u turjubaanina wuxuu ku sii daray inta asagu uu rabo iyo sida ula muuqdo. Waxaan arkay niman YouTuber oo dhahay reerkiibuu ka shifay, kan buu ka shifay, reerkii asaan la yeelaa. Asaga miyaad ogtihiin childhoodkiisii wixii dhiba ee soo gaaray ilmo yaray oo hooyadoodna la joogin, aabahoodna la joogin, imisa ayaa adduunka ku dhibaataysan. Kuwase hooyadoodii aabahood la joogay ma ogtihiin dhibaato badani inay gaarto oo aan la ogeyn oo qarsoon oo ay u geystaan member of the family oo guryaha kula nool ee caruurta u geystaan. Miyaad ogtihiin? Ma ogtihiin ilmuhu markay yaryar yihiin in sida ay tahay adduunka dhanba ay ka dhacdaa? Soomaali kaliya kama dhacdo, cadaankay ku dhacdaa. yacni any kind qof adduunkan ku nool ama wadan aysan ka dhicin caruurta dhibaatadoodu ma ay jirto. Dhibka uu dareemayo ama waxa uu qarsanayay ama dhibka isaga haystay miyaad ka warqabtaan? Sidee u judge gareyn kartaan ama aa u dhihi kartaan oo maxay ahayd kanuu yeelay kanuu ka dhacay, reerkiibuu ka shifay? Haddii reerka xaqu ka shifo oo waxa isagu uu sheegtay iyo dhibaatada uu sheegtay iyo caruurta uu ilaalin jiray iyo guriga lagula soo xiri jiray iyo sida loola dhaqamay Mo Farah uu sheegtay ay jirto, daad waxa xaqa ayaa feera ka dilaacay. Midda kaleeto maadinkaa sharciyada bixiya, maadinkaa dowladda Britain ah, ma adinka boqoradii baa kala noqon, war ilaahay baa boqor ah. Ninkan wuxuu gaarsiiyey Britain yacni 4 gold maxay ahayd medal ayuu qaatay, maxay ahayd bilada sharaf ayuu u soo hooyay. Magaciisa haddii loo deynayo iyo magaca haddii laga bedelayo, qofkaana magaca anytime ayuu bedelan karaa. Baasaboorkayga magaca iigu qoran, intaan tago ayaan bedeli karaa, magac kale ayaan ku qoran karaa. Maxay ahayd kana waxa uu sheegayba yacni dhibaato ku dhacday ayuu wiilkaani sheegtay. Dhibaatada ku dhacdayna oo maanta uu sheegay waa aabe, caruur buu leeyahay, reer buu leeyahay. Marka adinka Soomaaliyeed horta gidigeen dhan waxaan wadanahay wada wariyayaal, gidigeen dhan waxaan wadanahay wada dambi baaris, gidigeen dhan waxaan wadanahay wada ciidan, gidigeen dhan waxaan wadanahay yacni
high intelligent yaan gidigeen wada nahay keena baadiyaha jooga keena maxay ahayd magaalada jooga barofesoorkeena iyo baadiyaheena kan ka yimid lama kala garto waxaan nahay dad waxa ay doonaan iskaga hadlaya waxay doonaan sheega ma ogtahay waxaa laga yiri waxaa laga dhacay aniga I wonder waxa gidigeen oo dhanba markaan wax maqalno xidana sayidka fiican kama fiirino waxa aan ka fiirinaa sayidka xun ayaan waxa ka fiirinaa waxa aan jecelnahay in aan u sameyno wax aan jirin iyo wax aan joogin ayaan waxaan jecelnahay inaan u sameyno bablasheta kanay ka dhacday kii ka dhacday sharcigii waa laga qaadaa sharciga yaad ka maqashay sharciga waa laga qaadaa ma adiga dowladda Britain oo sharciga bixiya ma adaa dowladaha caalamka oo maxay ahayd magaciisa oo muxuu